kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya dalka boqortooyada Sacuudi Arabia halka aad nagala socotaanna waa Wardowr Media cod maqal ah oo laga soo duubay boqorka Sacuudi Arabia boqor Salman ayaa waxa uu amar ku bixiyay in la soo afjaro ciqaabta dilka ah ee ku saabsan dambiyada ay galeen caruurta aan qaangaarin sida lagu sheegay hadal uu soo saaray sarkaal sare go'aankan ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo uu jiray amar kale oo faraya garsoorayaasha in ay joojiyaan dhaqanka karbaashka kuna bedelaan waqti xabsi amaba ganax lacageed iyadoo amarkani uu yahay mid soo afjaraya nidaamka qaabka ciqaabta dadweynaha oo ahaa mid muran badan uu ka taagnaa wadankaasi wiilka boqor Salman ahna dhaxal sugaha dalka boqortooyada Sacuudi Arabia Mohammed bin Salman ayaa waxa loo arkaa in uu yahay xoogga ka dambeeya isbeddelka sharcigan ee uu ku dhawaaqay aabihii boqor Salman waxaana amarkan cusub looga gol leeyahay in Sacuudigu iska fogeeyo fasiraadda xaq jirka ee shareecada islaamka ee loo yaqaan wahabiyada taasi oo dad badan oo wadanka ka mid ah ay wali ay ku dhagan yihiin amiirka boqortooyada dalkaasi Sacuudi Arabia ayaa doonaya in uu casriyeeyo dalka soo jiita maalgashi shisheeye uuna dib u soo celiyo sumcaddii Sacuudiga ee caalamka waxa sidoo kale uu boqorku uu dib u eegis ku sameeyay xakamayntii xorriyadaha qaar sida tan xuquuqda haweenka tan dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa tan qoraayada iyo waliba tan wadaadada qunyar socodka ah kuwaasoo dhammaanba isbeddel uu ku sameynayay tan iyo markii dalka Turkiga dilka loogu geystay qoraagii Sacuudiga ahaa ee Jamal Khashoggi sanadkii 2018 xilligaasoo Sacuudiga dhaleecayn ba'an uu kala kulmay caalamka go'aankan ugu dambeeyay ee ka soo baxay boqor Salman ayaa waxa uu badbaadin karaa ciqaab dil ah oo lagu fulin lahaa ugu yaraan 6 nin oo ka tirsan bulshada Shiicada laga tirada badan yahay ee dalkaasi boqortooyada Sacuudi Arabia ku dhaqan kuwaas oo lagu eedeeyay in ay galeen dambiyo intii ay ka yaryaraayeen da'ada 18 sano oo uu ku jiro dadkaasi Ali al-Nimr ninka lagu magacaabo oo ka qayb qaatay mudaharaadyada looga soo horjeedo dawladda Sacuudi Arabia dhageystayaal waad ku mahadsantihiin dhageysiga qodobkaasi warka ah waxaana kala socoteen Wardowr Media fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar haddii aad tahay macmiil soo noqdayna ha iloobin in aad click aad siiso gambaleelka si aad u hesho ama u ogaato wararka ugu dambeeya ee aanu soo gelino channelkan